وحدتك وجبت اللي هدا قصل هل كي وهندتك لقى معاشي عاو قصل بان مدك لقى معاشي أنا وحلنا تاسا إنه بلنا قصل خاصة إنه بلنا راديو هلجن هذا العبد اللي راديو هلجن هرجيسة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ دعوة الراديو هلجن اللي عويسين ونكسن وحن كهذا دونا مركو هراء وحن كهذا دونا بدو مهمة أو أن خصية دلقة إسلام مركزنا إيشو لقد نكتي قلادة وطني وقت كوكا ماضي سيكل كنا يبش كهذا هدي له هذا بش جون كل تجستو ده يو حلبنا دي أي ماشي كنن oo aha xeerkii mideynta cashuurta xeertu alif xeerka mideynta cashuurta xukuumadda Soomaaliland baa mideysay wasaaradda maaliyadda mideysay raga maanta xisbiga wadani dhex jooga ayaa mideeyay agaasimihii guud muxuu codyare tan guud oo dadka loo qabto wasaaradda maaliyadda ay u garatay baa maalintii ninkii joogay uu joogay dalka iyo ganacsiga dalka ayuu faa'iido waha aabud la kastanba aha arabsiyo hadana kastanba aha galoole meesha la yiraahdo hadana kastanba aha berbera markii laga yimaado xamaas kastanba aha markii laga yimaado hadana muxuu ahaa geelo xaqan burco geelo kor aduu saasa ila galoole burco u socotay koob iyo konton control ba maalintii laga saaray ninkii joogay joogay inamada reerada imiga yimid muxuu ahaa ilmada lagu xafidsiye maaha عندي ذلك بركاسي جوكتي وجوكتي وحنا هيد دور يو كونتون كنترول بالله قاضي ذلك وحيس كهيد أون دايدقي أو كنترول فرتاي معناه دايدقي أون بينه وقت بينه كل بس مرني مر أنك تاجني ودون يكون وده دايد مر وحلا تاجنا مجاهدين تبى ساهد مر كان تنبنا الدولة ده هو سأيا سوق لي مجالك استسد كنترول أفر كنترول بقى يلا قصة مست دايدقي أو معناه يسموها marka waxa leenahay dawladdu iyadoo taa ka duulaysa cashuurihii dalka waa la mideeyay xeertu alif ayaa lagu mideeyay rag maalintii la soo galay xildhibaanada golaha baarlamaanka ee cusub waliba inaka gudoomiyaha imiga gudida dabagalka hantida qaranka iyo inakan ooyaye maxamed abib ayaa ragii ugu hor bilaabay ahaa xeerka mideynta cashuuraha wax lagu noqdo oo meesha yaal oo issue laga dhigto lagu ilmeeyo lagu ooyo ma waxa weeye xeerkaasi waa la mideeyay كبا لو سمي الدولة ده هوسه دقمة والبمانت كبلا شوي فردك كقارتها مش أقول بدن أي واحد صوف فيان أي مالتي دوينا ما يركب برا فراه لك الشيء واحد وحوين مقالة برعو وحوين مقالة وجود دخلي بدن للدل كمر كله وان كرالي بان كنا هاي حولها الصومالي ده إسكندر الصومال لأن حولها الجيش كأفريقيا أي سيلة وطاي برعو وين أجنهي عند الله عتاقو هاي ستوقت لا عشور تدا هلا مديو قبل يو سيلد تدا أرجع أي كجا بدن تاعي هرجيسو سيلد حولها أي كجا بدن تاعي مجرتو أو بربرون محوا حولها أي كجا بدن تاعي مجرتو عند ما تراهدو لكن ما يرك هالكاي ماد يحل دبانة ده هالكاي ماد دابا يدك هالكا مال ما هم بلغوده واحد كان لان حيرتو ألف برعو وحنلاقي قودنتها ليدن قودية فرد قاعد كو قادتان لعكت كبكة وزارة المالية دولة الحياة سبيسو ayaa idin roon oo idin socota sida daraadeed waxaan leenahay dadka lagu asqaynayo xirtu alif dalkooda buudan u yahay cid ka naxsan ma jirto laakiin saasa la isku quudinay ninkii la quudinayo una qaado ninka wax quudinayo una samirka iyo dadaalka iyo qaqabsiga yeel arinta kale doonayna ka hadlo waxa weeye Cabdiraxmaan Ciro iyo xisbigiisi iyagoon horena dalka wax u tarin maantana taariikhdu waxay qortay dhibaatadii ugu weyneyd Soomaaliland ee gubashadii shacabka suuqa waaheen ee geeska Afrika kun shilin iyagoon ku darsan dib u dhis kun shilin iyago oo aan dadka ka taxsiideyn ayay mu'aamarad iyo qabyaalad iyo qosol Cabdiraxmaan Ciro waa ninka iska qosla meeshu doonaba uu dhaxwaday saadaradeed waxaan leenahay arintaasi wax laga bacmishtareeyo ma laha wasaaradda hawlaha guud baana loo xil saaray gudida dib dhiskaana loo xil saaray ciidan boo halka inta dadka u timaado kala qaybisa kayri cadaalad la yiraayo saaxiib dulmi baa ta cadaalad ma tiid anagu qofka cadaalad la baxa dulmi baan u naqaan ninka dulmi loo bixiyana waa miskiin magacaaga cadaalad ayaa awajah laakiin dulmi baa tahay ninka intuu magaalada soo galay halkii gubitay qolama tahay ku yiri adoo habar ka bax dahaye baa tahay ummadda halka lagu kala qaybin ma hawsheedina way dhamaatay
hawsha dib u dhiskana madaxweynaha Soomaaliland qaranka Soomaaliland madaxweynaha oo ah ninkii dabka baqtiyay ninkii dib u dhiska idin qabtay ninkii muxuu ahaa la xijcilada kala ahaa ninkan qosol iyo cadam midna waxba kaga doonayn dadka ayaa wada sideedana u hirgelisay wasaaradda hawlaha guud bana fulin doonta maayirkii golaha deegaankuna hawshooda dhinacooda waxay xaq u leeyihiin bay qaadan doonaan tiyoon deere hirdiin ummadan aan cid la dulmin kii kaariyoona lahaana halkiisuun buu heli kii fooq ku jirayna halkiisuun buu heli taasina halkaas kaga baxaya arrinta ugu dambaysa doonaya waxa weeye arrinta saamaynta faraha badan la yeelatay 1 milyan oo qof igala soo hadleen xukuumaduna markay xalay badatay ay tidhi dadka isleynayo nacam dadka badan maanta aadan oo hinta dib noogu dhig waxaan dadka ugu bedelay hadda qosol halkii oo hin dadka laga macaashay caaw qosol baan madda kaga macaashay waxaan leenahay